markooda waxaan tacsi u dirayaa dhammaan eheladii iyo qaraabadii dhammaan dadkii ku geeriyooday dagaalkii ka dhacay shalay magaalada Gaalkacyo. runtii waxay ahayd dhacdo aad maaragtay tiiraanyo u leh. waxaan si gaar ah tacsi ugu dirayaa eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday wariyihii shalay ku dhintay meeshaas oo lagu dilay. waxaan rabaa sidoo kale inaan baaq u jeediyo dhammaan dadka ku dagaalamaya magaalada Gaalkacyo inay dagaalkaas u joojiyaan si shuruud la'aan ah. waxaana ka codsanayaa in ay dagaalkaas ay wax kasta oo maaragtay suurto gelin kara inay joojiyaan, inay ku dhaqaaqaan. runtii hubka ugu weyn oo maaragtay la haystaa ma ahan hubka la isku dilayo, waa hubka dib u heshiisiinta, waa maaragtay waa hubka wada hadalka. hubka ugu weyn oo bini aadamka ay nabadda u haystaan waa hubkaas waaye. qof kastana kaasoo heli karaa, waana midka nabad waarta aan ku heli karno iyo xasilooni. waxaan sidoo kale aan runtii ka codsanayaa odayaasha dhaqanka, waxgaradka, culamaa udiinka iyo qeybaha kale oo bulshada in ay arrintaas u istaagaan sidii loo jooji lahaa dagaalkaas iyo colaadda halkaas ka aloosan, ayaga oo qaadanaya iyaguna maaragtay hubkooda. hubkaas oo ah wada hadal iyo dib u heshiisiin. hubku ma ahan oo keliya qori, hubku ma aha oo keliya waxaa gacanta lagu qabsado. hubka ugu weyn waa wada hadalka iyo dib u heshiisiinta. waxaan sidoo kale maaragtay aan gubaabinayaa, aan kuna dhiirigelinayaa maamulada labada maaragtay dowlad goboleed in ay si dhaba ugu istaagaan arrintaas, oo ay maaragtay ka qayb qaataan joojinta colaadaas iyo inaysan dib usoo noqon. anigoo runtii ku hadlaya magaca mudanayaasha aqalka sare senatorska Galmudug, waxaan maaragtay ballan qaadaynaa kaalinteena inaan ka qaadano, oo ay kow ka tahay inaan meeshaas tagno iyo meel kasta oo nabad looga shaqaynayo, gaar ahaan joojinta colaadda magaalada Gaalkacyo.